salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janaalka dabagalka wararka oo 26 bisha koobaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah warar dheeraad ah oo ka soo baxaya ganacsiga suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha oo la xiray kadib marka soo baxay kooxda Daacisha dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo aad u badan ka dejisay magaalada Beledweyne iyo xiisada ka taagan magaaladaasi oo ka sii dartay kuraas cusub oo lagu doortay magaalada Kismaayo iyo Axmed Madoobe oo ka soo baxay oo ballankii hore uu la galay laftigreen argoosiga siyaasadeed ee u dhaxeeya Saciid Deni iyo Cumar Cabdirashiid oo sii kordhaya iyo dhacdo cajiib ah kadib askari kaligiis la dagaalamay 15 maleeshiyo oo ka tirsan argagixisada shabaab intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka oo diyaad ku cusubtahay janaalkan kusoo biiro subscribe saara muuqaalka like saar share oo la wadaag saaxiibada waad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey janaalkan haatanna aan idinku wareejiyo waryaheena oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u mahadsantahay halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatanna markaanu sii aanbaqaadno qodobada warka janaalkana dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa waxa ay ka dejisay magaalada Beledweyne iyo xiisada magaaladaasna waa ay ka sii dartay diyaarada sida ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee kumaandoosta Gorgor iyo kuwa booliska Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa waxa maanta siyaabooyin kala duwan diyaarada uga dejiyeen garoonka Ugaas Khalifa ee magaalada Beledweyne diyaaradahan oo sidee askar gaaraysa in ka badan 150 askari ayaa waxa ay saakadii hore ka ambabaxeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxayna si toos ah uga dageen garoonka diyaaradaha Beledweyne sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil amni sida uu ogaaday dabagalka wararka ciidamadan waxay hordhac u yihiin ilaa ku dhawaad 500 askari oo ay dowladdu u qorshaysay inay geyso Beledweyne oo ay haatan ka taagan tahay xiisad xooggan wararka ayaa sheegay in ciidamadan ay ku biiri doonaan kuwa dowladda Soomaaliya ee hore u jooga magaaladaasi isla markaasna ay ka qayb noqon doonaan ciidamada sugaya amniga doorashada kuraasta tala gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya sidoo kale wararka ayaa intaasi ku darayay in amarka ciidamadan looga qaaday Muqdisho laguna geeyay halkaasi uu bixiyay madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmihii ugu dambeeyay toos afaraha kula jiray arinta Beledweyne magaaladan oo hoos tagtay Hirshabeelle ayaa waxa dhawaan lagu qabanayaa doorashada ilaa 25 kursi oo kamid ah xubnaha golaha shacabka Soomaaliya waxaana xusid mudan in kuraastan mid kamid ah uu doonayo Fahad Yaasiin oo aad ugu dhow Farmaajo dhaqdhaqaaq iska soo horjeeda ayaa laga dareemayaa Hiiraan waxaana duleedka Beledweyne ku sugan ciidamo gadoodsan oo ka soo horjeeda Hirshabeelle oo loo dhawaan Muqdisho la keenay General Xuud oo haatan wada hadal kula jira dowladda Soomaaliya horey dowladda dhexe ayaa ciidamo uga dejisay magaalooyinka Garbahari iyo Dhuusamareeb oo ka kala tirsan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug laakiin wararku qaar waxa ay tilmaamayaan in ciidamadan sida gaarka u tababaran ee Gorgor iyo Haramcad ee laga dejiyay Beledweyne sababta ugu weyn ay tahay in ay magaaladaasi ka saaraan ciidanka la magac baxay badbaadada gobolka Hiiraan si Beledweyne looga dejiyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe isla markaasna loogu qabto doorashada kuraasta tala magaalada Beledweyne wararku waxa ay tilmaamayaan in laga yaabo in isku dhacyo xoogan ay ka dhacaan magaalada Beledweyne waa hadii ciidamadan laga dejiyo magaalada isla markaasna la filayo sidoo kale in berito qeybtooda kale la geeyo magaaladaasi ay isku fidiyaan gudaha magaalada Beledweyne in ciidamadan laga dejiyo Beledweyne ayaa timid kadib markii maalmo ka hor magaalada qeyb kamid ah lagu arkay ciidamo aad u hubeysan oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle isoo istaagna ku sameeyeen socdaal Cali Guudlaawe uu ku tagi lahaa magaalada Beledweyne dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa xaalad adag soo wajahday waxaana laga cabsi qabaa mar walba xaaladda inay isbedesho waxaana la sheegayaa tani inay u muuqato mid la mid ah tii ka dhacday magaalada Gurceel kadib markii ciidamo taabacsan ahlu sunna ee magaaladaas la wareegeen dowladuna diyaarado ku daabushay ciidamada Gorgor iyo Haramcad kuwaas oo dagaal adag Gurceel uga saareen ciidankii ahlu sunna ka tirsanaa sidoo kale ciidamadan la geenayo Beledweyne ayaa imaanaya xilli hooyada dhashay Igraan Tahliil oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkeeda xubno sarsar oo ka tirsan nisa ay ku hanjabtay in Fahad Yaasiin uusan kursi ka doonan karin Beledweyne isla markaasna ay ka aargusan doonaan waxaana la ogeen ujeedka ciidamadan ma mid Fahad Yaasiin iyo sugidda amnigiisa hordhac u ahaa mise waa mid ciidanka badbaadada gobolka Hiiraan loo doonayo in looga saaro gabi ahaanba Beledweyne iyo agagaareeda oo Cali Guudlaawe halkaas lagu geen doono
dad badan ayaana su-aalo ka keenay qaabka ciidankan lagu daabulayo magaalada beledweyne iyo waxa ka imaan kara. geesta kalena warar dheeraada waxa ay ka soo baxayaan ganacsigii suuqa weyn ee Soomaaliya ee Bakaaraha oo la xiray kadib amar ka soo baxay kooxda Daacish. xaalada suuqa Bakaaraha ee ugu weyn magaalada Muqdisho iyo geeska Afrika ayaa cakiran kadib markii qaybo badan oo kamid ah suuqaasi loo xiray amni daro. ganacsiga suuqa Bakaaraha ayaa u xiran amar ka yimid kooxda Daacish oo lacaga baada ku soo rogtay ganacsatada suuqaasi, taas oo keentay in amni daro iyo cabsi darteeda ay u xirmaan goobihii waaweynaa ee ganacsiga. ganacsatada qaarkood ayaa u sheegeen warbaahinta inay u xireen ganacsigooda hanjabaadyo uga imaanayo kooxda sheeganaysa inay yihiin Daacish oo taleefano kula soo hadlaya ganacsatada fariimo toos ah iyo waliba qaabab kalena u maraya ayna waayeen qaab ay ula xiriiraan iyadoona qaarkood ka soo hadlaya gobolka Bari. ganacsatada ayaa sheegeen in kooxda Daacish ay weydiisatay lacag dhan 30% inuu ka bixiyo qofka ganacsadaha ah hantida uu ka shaqeeyo, waxayna beegsanayaan baqaarlayaasha carwooyinka iyo waliba shirkadaha. Daacish ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeysay qarxinta 2 gaadiid oo ay leeyihiin shirkado ganacsi oo dhawaan ka dhacay gudaha suuqa Bakaaraha iyo xaafada Tabagaaya Madow ee degmada Dharkiile kadib markii ay diideen inay lacaga baada siiyaan kooxdaasi. amniga suuqa Bakaaraha ayaa sii xumaaday markii la sheegay in bishii December 2021 iskaga baxeen ciidamadii dharcadda ee NISA, waxaana la sheegay in ay ku dhex jiraan suuqaasi xubno ka tirsan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish. si kastaba ganacsatada Soomaaliyeed ayaa u nugul dhibaatooyin canshuur qaadis ah oo ay kala kulmayaan kooxaha Al-Shabaab, Daacish iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya. ganacsatada ayaana aad ugu dhiban lacagahani koox walba ay ka dalbanayso, waxayna sheegeen inaysan jirin si toos ah wax uga qabata. marka kooxda Daacish ay isku dayaan inay lacag ka qaadaan ganacsatada gobolka Banaadir qaarkood ayaa kooxda Al-Shabaab waxa ay ku amartaa ganacsatada inaysan bixin lacagahaas iyaguna ay ka hortagi doonaan. haase yeeshee waxay sheegeen inay dhibanayaal u yihiin dhinacyada kooxahaasi argagixisada iyo waliba dowladda Soomaaliya. kuraas cusubna waxaa lagu doortay magaalada Kismaayo. Axmed Madoobena waxa uu ka soo baxay ballantii uu hore ula galay lafta gareen. magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta ka dhacday doorashada kuraas kamid ah xubnaha golaha shacabka iyadoo lagu doortay 3 xildhibaan oo kamid noqonaya baarlamaanka. kursiga hoob 127 ayaa waxa ku guuleystay Dr. Axmed Aadan Axmed oo helay 48 cod, halka musharaxii la tartamayay Cabduqaadir Cabdullaahi Xirsi uu isna helay codad intaasi ka yar. sidoo kale kursiga hoob 118 ayaa waxa ku soo baxay xildhibaan Yuusuf Maxamed Ismaaciil oo loo qaaday cod gacan taaga kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa. kursiga saddexaad ee hoob 126 oo aad isha loogu hayay ayaa waxa isna ku soo baxay Xasan Xuseen Maxamed Eelay oo ah wasiirka gaadiidka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuuna helay 74 cod, halka musharaxii la tartamayay Cabdiraxmaan Macalin Xuseen oo isna helay 21 cod. sidoo kalena waxaa halaabeen 5 cod. Jubbaland ayaa hore u qabatay doorashada kuraas kamid ah xubnaha golaha shacabka, gaar ahaan deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. tallaabadan ayaana qayb ka ah fulinta heshiiskii laga gaaray doorashooyinka Soomaaliya kadib shirkii golaha wada tashiga ee ka dhacay Muqdisho. dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka dhabeeyay balantii ay isla galeen isaga iyo waliba madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, taas oo la xiriirtay kala bedelashada 2 kursi oo kala taala Kismaayo iyo Baydhabo. doorasho kamid ah kuraasta golaha shacabka ee maanta lagu qabtay Kismaayo waxaa kamid ahaa oo lagu doortay Xasan Xuseen Maxamed Eelay oo ah wasiirka gaadiidka Koonfur Galbeed, wuxuuna ku soo baxay kursiga hoob 126 oo uu hore ugu fadhiyay Maxamed Xasan Idris Ganey. tani ayaa ka dhigan in Axmed Madoobe uu ka soo baxay ballantii uu la galay Cabdicasiis Laftagareen oo hore ugu booqday Kismaayo sabab la xiriira doorashada kursigaasi. hase yeeshee haatan Laftagareen ayay hortaala xujada Axmed Madoobe ee ah in isaguna markiisa uu siiyo kursi yaala magaalada Baydhabo oo ay leedahay beesha uu ka soo jeeda Axmed Madoobe. si kastaba Soomaaliya ayaa haatan ku jirta xaalad adag oo kala guura, taas oo ka dhalatay daaha doorashooyinka dalka oo dib u dhacay muddo 1 sano. dhanka kalena argoosiga siyaasadeed ee u dhaxeeya Dani iyo Cumar Cabdirashiid ayaa sii kordhay. doorashada golaha shacabka ee ka socota maamulka Puntland ayaa la kulmaysa dhaleeceen ku aadan habka loo maareynayo ilaa iyo hadda. hogaamiye Saciid Cabdullaahi Dani ayaa doorashadii geeyay xarunta ciidanka ee 54. dadka sida weyn u naqdiyay arrintan waxaa kamid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, kaas oo sheegay in ay khatarteeda leedahay in xiro ciidan lagu qabto doorasho xubnaha golaha shacabka, isagoona isweydiiyay ciidda lagala xisaabtamayo dhibaatadaasi.
wuxuu sheegay inay tani ka argagax badan tahay wixii ay hore uga digeen cumar oo la hadalhayo inuu ka mid yahay musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa loo arkaa dhaawaca koowaad ee gaari doona Saciid Dani. sheekadan waxa ay la xiriirtaa wixii ka dhacay doorashadii 2016 Cumar Cabdirashiid oo xilligaasi ra'iisul wasaare ka ah dalka wuxuu doonayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha Soomaaliya. Gaas oo xilligaasi maamulaya Puntland wuxuu ogolaa inuu dhiso Cumar balse waxaa dhaxda ka soo baxay Saciid Cabdullaahi Dani kaas oo ka soo carooday in loo diiday kursiga xildhibaanimo ee beeshiisa. Saciid Dani wuxuu xilligaasi go'aansaday inuu u tartamo xilka madaxweynaha Soomaaliya. Dad waxgal ah oo reer Puntland ah oo loo diray ayaana ka codsadeen Saciid Dani inuusan in fursada Cumar Cabdirashiid balse codsigooda dhagjalaq uma siinin. Codadkii uu Dani heli karay waxa la fahansanaa inay ahaayeen kuwa ka imaanaya Puntland kuwaas oo haddii uusan Dani tartami lahayn la filan karay inay aadaan dhanka Cumar Cabdirashiid. doorashadii dhacday 8 Febraayo 2017 wuxuu Saciid Dani helay 18 cod waxaana ilaayo haatan la aaminsan yahay in uu jeedgooyo u dhigtay codadkii Cumar Cabdirashiid oo isagu helay wareegii koowaad 37 cod. haddii Dani uusan waqtigaasi tartami lahayn waxa ay dad badan qabaan in 18 kaasi cod ay aadi kareen intooda badan dhanka Cumar Cabdirashiid. hadda waa 2022 Saciid Dani waxa uu doonayaa inuu u tartamo xilka madaxweynaha wuxuu ku jiraa dadka ugu fursada fiican doorashada sanadkan laakiin waxa ay kooxdiisu ka walacsan tahay qorshaha Cumar Cabdirashiid oo isna raba inuu u tartamo xilka madaxweynaha. kooxda Saciid Dani waxa ay qaar aaminsan yihiin in ujeedka Cumar uu tartamayo inay tahay argoosi siyaasadeed oo la xiriira wixii dhacay doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday Soomaaliya. dhowaan wuxuu Cumar ka soo horjeestay bayaan ee Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdiweli Gaas iskugu dayeen inay ku garab istaagaan qorshaha Saciid Dani ee Boosaaso oogana hor yimaadeen go'aankii ismada maamulkaasi balse Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo iska bariyeela arintaasi qoraal ahaan iyo cod ahaanba labadaba. mar kale wuxuu si buuxda u naqdiyay sida uu Saciid Dani u maamulayo doorashada golaha shacabka taas oo si iftiiminaysa loolanka socda. hadda dad badan waxay isweydiinayaan Cumar Cabdirashiid ma kala qaybin karaa codadka uu isku aadisanayo Saciid Dani. hogaamiyaha maamulka Puntland wuxuu dagaal la galay dhammaan siyaasiyiintii geed fadhiga u ahaa siyaasadda reer Puntland ee Muqdisho taala wuxuu taasi bedelkeeda abuurayaa siyaasiyiin cusub iyo kuwa uu ka soo dhex saaray xukuumaddiisa Puntland sida iska cad kooxdaasi wax badan xamar kama goyn karaan balse waxaas oo dhan waxa ka xoog badan oo qorshaha ay wadaan Cumar Cabdirashiid iyo xubnaha kale ee reer Puntland ee Muqdisho fadhiga ku leh. inta laga yaqaano siyaasadda Cumar Cabdirashiid saaxiibtinimadiisa akhrintiisa fudud ee siyaasadda taagan iyo waxa ay saaxiibadiisa ka shaqeynayaan maalmahan waxa la aaminsan yahay in Cumar si weyn u dhaawici karo codadka uu Saciid Dani ku xisaabtamayo gaar ahaan kuwa ka imaanaya dhanka Puntland. وهاجي داود يالي مكان وحنو إيجينا دعدة عجيب كدب أسكري كليجيس لا دجال لما شن يطبعا كترسن قاعد على الشباب. dhacdo la yaab leh ayaa habeen hore ka dhacday afaafka hore ee magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado kadib markii askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay si kadis ahayd iskaga hor yimaadeen xubno ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab. askarigan oo hooygiisa ka baxay kuna sii jeeday xirada ciidanka xoogga dalka ku leeyihiin magaalada banaankeeda hore ayaa la sheegay in ay wadada isku arkeen maleeshiyadkaasi xilli miina ay ku aasayeen wadada dhinaceeda. wararka ayaa sheegay in halkaas uu ku dhaxmaray iska horimaad muddo kooban socday sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada maleeshiyadaasina ku qasabtay inay dib u gurtaan. Cabdisamed Siraad Maxamed ayaa iska horimaadkaasi ku dhaawacmay halka dhinaca shabaabkana la sheegay in 2 nin uu ka dilay. sargaal ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Gado oo dhacdadaasi ka waramaya ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay fooda galin kari waayeen difaaci uu xirtay askarigaasi. nimanku waxay ahaayeen ilaa 15 nin oo cadowga Al-Shabaab qaab dhuumaaleysi beena halkaasi ku yimaadeen. markii askariga arkeen hal mar ayaa dabsaar lagu kulmiyay asaguna waa uu iska difaacay. difaac adag ayuu galay wayna uu soo gali waayeen ilaa ciidan gurmada uu soo gaaro. ciidamadii xarunta militariga ka yimid iyo kuwa booliska ahaa ee degmada ka yimid intaba asagoo difaac ku jira oo dhaawac ayay u yimaadeen. in ka badan 20 xabadood baa ku dhacday. booshkii uu watana qaar baa burburay. xabadii ku dhacay awgiisa ayuu yiri sargaalkan oo codsaday in magaciisa warbaahinta loo adeegsan. waxa kale uu yiri ciidamada waxay halkaasi ka soo qaadeen qori AK-47 iyo dhowr khasnadood oo rasaas oo nimankii cadowga ay uga carareen goobtaasi waxaad ka arki kartay sida ay dhiigooda u daatay markii la sii raad gurayna
in 2 nin dagaalkaas uga dhinteen ayaa cadaatay ayuu yiri isagoo hadalkiisa sii watay ayuu intaas ku daray Cabdisamed Siraad Maxamed waa askari ka tirsan guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xooga dalka asagoo daayira ayuu ciidanka qortay wuxuuna kamid yahay askartii ilaa 2011 difaac uga jiray gobolka degmooyin badan wax ka qabtay waana nin si aad u tababaran oo koorsooyin badan qaatay Cabdisamed Siraad oo xaaladiisa lagula tacaalayo isbitaal ku yaala magaalada Garbahaare ayaa waxa la filayaa in dhaawiciisa loo qaado Muqdisho dhacdadan ayaa imaanaysa saacado kadib markii 2 askari oo ka tirsan ciidanka xooga dalka ee koox hubeysan ku dileen degmada Baardheer ee gobolka Gado guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii waad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan hadaan ugu cusubtay nagu soo biro subscribe saara janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada oo la wararkii warbixinada 24 saacan halkan ku baahino aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalka share gareeya laagtiin oo inoo muhiim daawadayaal wana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka